waxaa inoo bilaabanaya tafsiirka qur'aanka kariimka ah oo uu inoo akhriyo sheekh xasan ibraahim ciise dhegaysi wanaagsan aan ka faa'iidaysanno kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo xaafadaheenna guryaheenna fadhiyadeenna joogna ilaahay subxaanahu wa tacaala adinkana ay dib fududeeyo shiikha iyo inta shaqaynaysana soo duceeya dhammaan walaalaha khayrka ka shaqaynahaya baarakum allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh falyatafaddal mashkuuran sheekh xasan ibraahim ciise. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وعن كل حجرنا ولسورة واقعة إلى وحنصة المامي سبحانه وتعالى ضدك سيمركا أكل قيب سمايين dadkii saabiqiinta ahaa iyo wixii lagu abaalmarinayay waana loo soo tilmaamay asxaabulyamiin baa la raacsiiyey intaa kadibna asxaabushimaal oo lagu soo tilmaamay inuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala asxaabushimaal waxay ku dhex sugan yihiin samuum iyo xamiim waa biyo kulul iyo naar hoos qaaca aan qaboobayn aanna wanaagsanayn sababtuna waxay tahay markaa horteed baa loo raaxraaxeeyey waxay ahaayeen kuwo daa'imay dembigii weynaa waxay kaloo inkireen bacsigii qiyaamo waxay dhaheen a idaa mitnaa wa kunnaa turaaban wa cidaaman haddaan dhimano oo lafa iyo wax baaba'ay aan noqono miyaa dibna loo soo celinayaa aabbayaalkeenii horena mala soo celinayaa markaasuu ilaah yidhi waxaad ku dhahdaa rasuulkii allow qul ina alawaliina waalaakhiriin kuwiina hore iyo kuwiina dambaba lamajmuucuuna kuwa loo soo jamcinaya ayaa tihiin miiqaat iyo wakhti la madaleeyo macluum markaa ah weli hadalkoodii baa noo sii socda humma intaa ka bacdi innakum adinku ayuha addaalluuna kuwiinaan dhumay almukadibuuna ee beeniyayow la'aakiluuna kuwii cunaya ayaa tihiin la'aakiluuna min shajarin geed xaggii ayaad ka cunaysaan geedkaasoo min zaquumin geed qodxeed ah geed zaquumo ah ayaad cunaysaan buu yidhi ilaahay famaali'uuna kuwa ka buuxinaya ayaa tihiinoo waxaad ka buuxinaysaan minhaa geeddaa xaggeeda albutuuna caloolaha caloolihiina ayaad ka buuxinaysaan fashaaribuuna kuwa cabaya ayaa tihiinoo calayhi geedkaa markii aad cunteen dushiisa waxaad ka dulcabaysaan min alxamiimi biyaha kulul fashaaribuuna kuwa uu cabaya ayaa tihiin shurba alhiimi hiimka cabitaankiisoo kale ratiga cudurka hiimka qaba rati waxaa jira biyo cab badan oo aad u biyo caba ratiga hiimka ah ee sida ratiga uu biyaha u cabo weliba cudurka hiimkaa qaba ee biyo cabka badan wax badan buu cabaa isla markiina wuu haraadaa kaa se uu cabayo oo kale kuwa uu cabayaa tihiin markaasaa loo odhanayaa haadaa kan nusuluhum waa nusulkoodii haadaa midkani waa biyihii kululaa geedkii zaquuma oo caloosha laga buuxiyey biyihii kululaa oo loo cabay sidii ratiga hiimka qaba oo kale uu wax u cabo nusuluhum waa martiqaadkoodii dadkaa dhumay ee beeniyey waa wixii lagu abaalmarin lahaa oo lagu soo dhowayn lahaa yowma addiini maalinta qiyaamaha maalinta yowmuddiinka wixii lagu soo dhowayn lahaa waaye humma intaa ka bacdi innakum adinku ayuha addaalluuna kuwiinaan dhumay almukadibuuna ee beeniyayow la'aakiluuna waad cunaysaan min shajarin geed kuwa ka cunaya xaggiisaa tihiin geedkaasoo min zaquumin zaquuma markaa ah geed qodxeed baad cunaysaan famaali'uuna kuwa ka buuxinaya ayaa tihiin minhaa geeddaa xaggeeda albutuuna caloolaha macnaa waa calooshiina fashaaribuuna calayhi kuwa dushiisa ku cabaya ayaa tihiin min alxamiimi biyo kulul xaggiisa fashaaribuuna shurba alhiim waxaadna u cabaysaan sida hiimka oo kale ratiga biyaha caba weli ratiga cudurka hiimkee biyo cab ka badan qaba
kuwa markaa u cabaya haadaa nusuluhum kani waa nusulkoodii yowma addiini maalintii qiyaamaha naxnu annagaa khalaqnaakum idin abuurnaya falowlaa tusadiquuna maad rumaysaan waan idin abuurnay oo abuur hore ayaan idin abuurnay abuurkiinii hore annagaa qalaqnaye maad rumaysaan kan dambe maxaa u beeninaysiin maxaa idinku kelifay inaad dhahdaan awa aabaa'una alwaluun a innaa lamabcuuhuun annagaa idin qalaqnay naxnu khalaqnaakum ee falowlaa tusadiquun maad rumaysaan afara'aytum waxaad ka warantaan maa tumnuuna waxa aad daadinaysaan dhibicda nudfada ah ee menida ah ee laga abuuro insaanka qof allaala qofka markuu rabbi abuuraya subxaana wa tacaala wuxuu ka abuurayaa min nudfatin amshaajin dhibic biyo ah oo isku dhex darsantay marka biyaha markaad tuurtaan oo riximka hooyo aad ku daadisaan ka warrama xaaladdeeda a antum ma adinkaa takhluquunahu abuura oo ka sameeya biyaha makhluuq ee madakar ah ama unha ah amase naxnu anagaa alkhaaliquuna kuwa khaaliqiin ahoo abuura ah ma idinkaa abuuray mase annaga buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala biyaad daadisay riximkaad ku daadisay ilaahay wuxuu kari karaa inuusan waxba ka samaynin wuxuu kari karaa inay sidooda ku soo baxaane ma idinkaa abuuray oo dhibicdaa biyaha ah aadana ka abuuray makhluuq ka abuuray mase annaga buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala jawaabtu way caddahayo waa ilaahay naxnu annagu qadarnaa waan qadarnay baynakum dhexdiina almowta dhimasho ayaan ku qadarnay wamaa naxnu mananihi bimasbuuqiina kuwa laga dheerayn karo kuwa laga fakanayo la cajis gelinayaa manihi calaa an nubaddila inaan beddelno amhaalakum mahaladiina inaan idinka idin baabi'ino oon mahal idinkoo kalaa keensano taana manihi kuwa looga cajis gelin karaa oo looga dhaqi kara wanunshi'akum oon haddana idin amaamudno fii maa laa taclamuuna saydan markaa u ogayn qiyaamaha marka la gaarana aan idin amaamudno oon idin abuurno fii maa laa taclamuuna saydan adinku markaa garanaynin hadda way idinla culus tahay bacsiga qiyaamo abuurkii dambe laakiin si aadan ogayn baa laydiin abuurayaa wanunshi'akum oo aan markaa idin abuurno oan idin amaamudno fii maa laa taclamuuna saydan markaa u ogeyn walaqad calimtum waad ogaateen annash'ata aluulaa abuurkii hore idan waad u jeedaan waad arkaysaanoo indhihii baad saarteenoo wax xaqiiqaa ayay idinla tahoo waad aragteen maxay inkirsan yihiin marka bacsiga qiyaamo haddaan dhimana seena loo soo bixinaa bay meesha u taagan yihiin insaanka markuu baaba'a miyaa dib loo soo abuurayaa insaanku hadduu dhinto ma la soo abuurayaa khalqi jadiid ahoo cusub saasay inkirsan yihiin markaasuu ilaah leeyahay walaqad calimtum waxaad ogaateen annash'ata aluulaa abuurkii hore falowlaa tadakkaruuna maad kuwaana qaadataan oo taa idinku kelifta inaad rumaysaan kan dambe inaad rumaysaan inay idinku kelifto ayaa markaa la doonayaa marka kii horeba haddaad aragteen ka dambe waa ka fudud yahay samaawaadkii arlada abuurkooda iyo bani aadamka khalqigiisa samaawaadkii arladaaba la dhihi karaa waa wax culus saa darteed soo saaritaanka dambena wahuwa ahwanu calayh waa u dabacsan tahay ilaah subxaana wa tacaala idan walaqad calimtum waxaad ogaateen annash'ata aluulaa abuurkii hore falowlaa tadakkaruuna maad waana qaadataanod xusuusataan kan dambana afara'aytum waxaad iiga warantaan maa taxruhuuna waxaad beeraysaan awa beeralaydii xabad badar ah ama loos ah ama masago ah ama digir ah yaa intuu dhulka qoduu ku dhex ridayaa wuu iska baxa gurigiisuu aadayaa afara'aytum waxaad iiga warantaan maa taxruhuuna waxaad beeraysaan ood abuuraysaan a antum ma idinkaa tasracuunahu beera macnaha ma idinkaa ka soo dhaliya geedkii weynaa am naxnu zaaricuun mase anagaa kuwii zaariciin ahoo beera oo markaas soo bixiya oo geed weyn iyo raashin la cuno ka soo bixina ma idinka mase annaga idinka intaad yaamba dhulka ku qodeen ood xabada ku rideenaad ka tagteen low nashaa'u haddaan doonayno la jacalnaahu waxaanu ka yeeli karnaa xutaaman burbur dhulkii aad ku rideen baa ciidda cuni kartaa waa ku xallisin karnaa oo waa ku baabi'in karnaa fadaltum markaasaad ahaan lahaydeen tafakkahuuna kuwa yaaba
oo dhaha innaa annagu lamuqramuuna kuwa la qaameeyey baan nahay bal iska daa naxnu annagu maxruumuuna kuwa laga hoojiyey raashinka cunitaankiisii baan nahay saasaad dhihi lahaydeen marka dadow caqli qaata oo xusuustu ilaahay leeyahay afa ra'aytum waxaad iiga warantaan maa taxruhuuna waxa aad beeraysaan waxaad dhulka ku abuuraysaan a antum idinka miyaa tasracuunahu soo saara idinka miyaa soo dhaliyay tasracuunahu macnaha abuuray ma abuurkan dambe waxaa loola jeedaa ma idinkaa markaad dhulkii ku rideenood beerteen ka soo bixiya geed weyn am naxnu zaaricuuna mase anagaa zaariciin ahoo kuwii beeray ah kuwii abuuray ah macnaha dhaliyey inay nabaad iyo wax la cuno ka soo bixiya ma idinkaa mase waa annaga low nashaa'u haddaan dooni lahayn lajacalnaahu abuurkii aad abuurteen baan ka dhigi lahayn xutaaman ku burbur ah ciidda ku baaba'a fadaltum markaasaad ahaan lahaydeen tafakkahuuna kuwa markaa yaaba kuwa la tacajubaad noqon lahaydeen xilli beereedkii markii la gaaro oo dhulka aad ku ridaan wax walba wakhtiguu ku soo baxaad ogtihiin markaad weysaan oo dhulku ay ku baaba'aan fadaltum waxaad noqon lahaydeen markaa tafakkahuuna kuwa markaa yaaba oo yidhaahda inna annagu lamuqramuuna kuwa la qaameeyey baan nahay kuwa la deemeeyey ilan way dhici kartaa inaad mataqaanaa aad gelisay qarash in waxyaabo fara badan aad ku samaysay qaarkood inaad deen ku soo qaadatay oo aad rabtay markay beerta kuu soo baxday inaad guddo innaa lamuqramuun baad dhehaysaan marka kuwa la qaameeyey oo qoorta loo geliyey ayaan nahay bal iska daaya naxnu annagu maxruumuuna kuwa laga hoojiyey baan nahay beertii cunitaankeeda afa ra'aytum waxaad iga warantaan haddana almaa'a biyihii alladii biyahaasoo tashrabuuna aad cabaysaan biyaha aad cabaysaan marka oonka iyo haraadka idin qabto intaa ka bacdina oonka idinka gooya kaana iiga warrama a antum ma adinkaa anzaltumuuhu ka soo dejiyey min almusni daruuraha xaggooda am naxnu almunziluun mase anagaa soo dejinay yaa idinka mid ahoo baxay oo inta daruuraha tegay ka soo tuujiyey oo ka soo bixiyey oo ka soo dejiyey biyaha ma idinkaa mise waa wasaaradda biyaha saa darteed buu ilaah leeyahay a antum anzaltumuuhu ma idinkaa biyaha ka soo dejiyey min almusni daruuraha xaggooda halkaa saree daruuraha ah idinka miyaa ka keenay am naxnu almunziluuna mase annagaa ah kuwii soo dejiyey low nashaa'u haddaan dooni lahayn oo aan doonno jacalnaahu waxaanu ka dhigi lahayn biyihii macaanaa ee aad cabayseen ujaajan qaraaraan ka dhigi lahayn buu dhahay ilaahay kuwa qaraar ahoo sida biyaha baddoo kale ah ee markaad afka saartaan aad cabi weysaan laakiin hadda tashrabuun waad cabaysaan weli wuu soconayaa dhuunta wuu ku sii marayaa qofku waa sii macaansanaa haraadkii waa ka sii goynayaa idinkamaa biyaha saas u macaanood cabaysaan ka soo dejiya daruurta xaggooda a antum ma idinkaa anzaltumuuhu ka soo dejiyey biyaha min almusni daruuraha sare xaggooda amase naxnu anaga almunziluuna kuwii soo dejiyey ah ilaahay waa soo dejiyey low nashaa'u haddaan dooni lahayn jacalnaahu waxaanu ka dhigi lahayn biyaha oan ka yeeli lahayn ujaajan biyo qaraar idinkagama yeelin biyo macaanood cabtaanoo haraadka iyo oonka idinka goyan idinkaga dhignaye falowlaa tashkuruuna maxaad u shukrin weyseen falowlaa tashkuruuna maad shukrisaan ilaahay baa saa idinkaga dhigay subxaana wa tacaala afa ra'aytum waxaad kaloo iga warantaan annaara dabka allatii dabkaasoo tuuruuna aad hursanaysaan dabka aad shidanaysaan a antum ma adinkaa ansha'tum abuuray shajaratahaa geedeeda am naxnu almunshi'uuna mase anagaa amaamudnay buu dhahay ilaahay geed ayaa mararka gobol ka mid ah dabka laga dhaliyaa weliba geed cagaaran sida qur'aanka noo keeni doona min ashajari alakhdari naaran geedkii cagaarnaa buu ilaahay dab ka dhigay inta lasoo gooyo miiga ku kale lasoo qaadaa laysku lisaa macnaha inta laysku xoqo yaa dab ka soo dhashaa waa madag taasaa dabku ay wax ku karsadaan kaasuu ilaah subxaana wa tacaala tilmaamayaa afa ra'aytum annaara dabkii iiga warrama allatii dabkaasoo tuuruuna aad hursanaysaan ood shidaysaan ood wax ku karsanaysaan a antum ma adinkaa ansha'tum amaamuday shajaratahaa geedeeda macnaha geedkaa dabka laga sameeye dabka laga dhaliyo ma idinkaa abuuray am naxnu almunshi'uuna mase anagaa amaamudnoo abuurnay naxnu anagu jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay dabkii
tadkiratan waana qaadasho, tadkiro iyo xusuus jahannamo lagu xusuusto. macnaha dabkaad wax ku karsanaysaan gacanta geliya. hadda haddii gacanta aad gelisaan ood intaad qabato gacantaad sidaas ku dhahdo iska dama asoo dhan dhibna uusan ku gaarsiinin, waxba kaama qaadi karo. laakiin haddaad gubato oo ama kari weyso amaad u dhoweyn weyso, tadkiro la imaada. xusuusta waa jahannamo wax lagu xusuusto. wa mataacan iyo raaxo ayaan uga dhignay lilmuqwiina dadka musaafiriinta ah. muqwiinta waa dadka guurguura, ayadana waa u raaxo. say isaga socdaana kulayl iyo qabow iyo waxyaaba intuu ku dhaco yaa geeddaa la soo qaadayaa. ku kale intay soo qaataan baa laisku waxeena. ilan kibriid ma haystaan, taraq ma haystaan, waxay wax ku shidaan ma haystaan. geeddaasaa ilaahay u ammaamuday subxaana wa tacaala. marka horena waxaan uga dhignay dadku inay jahannamo ku xasuustaan oo lagu caqli qaato. ta kalena waxaan ka dhignay dadka muqwiinta ee musaafiriinta ee guurguuraaya inay u noqoto mataac. waxbay ku dubanayaan, waxbay ku karsanayaan, ayagiibaa isku kululaynaya. intaasoo dhan bay markaa samaynayaan. afara'aytum waxaad iiga warantaan annaara dabka allatii dabkaasoo tuuruuna aad hursanaysaan. a antum ma adinka ansha'tum amaamuday shajaratahaa geeddeeda, amase naxnu anagaa almunshi'uuna kuwii amaamuday ah. naxnu jacalnaahaa waxaanu ka yeelnay dabkaa tadkiratan caqli waan qaadasho, xusuuso jahannamo lagu xusuusto. wa mataacan iyo raaxo lilmuqwiina dadka guurguuraya ee fasabbix tasbiixso. huf rasuulkii ilaahayow nasih bismi rabbika rabbigaa magaciisa alcadiimi ee weyn. rabbigaa magaciisa nasih. ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa asagaa iskale. haddaad magaciisa huftood dahirto wuxuu lamid yahay waxaad la mid tahay adoo asagii dahiray. fasabbix huf rasuulkii allow nasih tasbiixso bismi rabbika rabbigaa isimkiisa alcadiimi ee weyn. falaa uqsimu waan dhaaranayaa buu dhahay ilaahay bimawaaqici nujuumi makaanu dhaca xidigyaalka ayaan markaa ku dhaartay. mawaaqicdan waa markay dhacaan meelaha ay tegaan, amase mawaaqicda meelaha ay degaan waa suuragal ayadana. marka ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa xidigaha makaanu dhacooda. bimawaaqici nujuumi xidigaha makaanu dhacooda iyo meelaha ay ku dhacaan ayaan ku dhaartay. meelaha ay degaan marka ay dhacayaan. wa innahu taa laqasamun waa dhaar. low taclamuuna haddaad tihiin cadiimun ee weyn. low taclamuuna haddaad og tihiin cadiimun markaa weyn. waa dhaar cadiima haddaad tihiin dad wax og. wa innahu dhaartaasi laqasamun waa dhaar cadiimun oo weyn. low taclamuuna kuwa og low aad tihiin, kuwa arrintaa garanaya haddii aad tihiin. ileen waa dhaar wax lagu dhaartana aad iyo aad ugu weyn. innahu qur'aanku la qur'aanun waa qur'aan kariimun wanaagsan. kitaab ama qur'aan kariim ahoo sharaf leh ayuu qur'aanku ahaaday. fii kitaabin kitaab buu ku qoran yahay. kitaabkaasoo maknuunin la ilaaliyey, kitaab la dhowray oo la nadiifiyo wasaq iyo danasii dhammaan laga dahiray. laa yamasuhu ma taabanayo ila almutahharuuna dadka daahirkaa maahane, qolada daahiraadada u sugnaatee daahirkaa maahane. innahu la qur'aanun kariimun kani waa qur'aan kariim ah. fii kitaabin maknuun kitaabka loox maxfuud aan ka dhigno waa kitaab la ilaaliyey. maknuun waxaa la dhihi karaa kitaab imtiqaanaa la qariyey aan la arkin waxa markaa ku qoran, waa loox maxfuudka. laa yamasuhu mana taabanayo oo ma taabta kitaabka waa loox maxfuudka ila almutahharuuna oo malaa'igtii markaa ah. tanziilun waa dejin, waa soo degid ama qur'aanku waa tanziil dejin oo min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo dejiyey. qur'aankani caalamka oo dhan rabbiga maamula ee asaga rabbiga u ah xaggiisuu ka yimid. ee afa bi hada alxadiidi xadiidkan ee kan ah miyaad antum adinku mudhinuuna beeninaysaan. watajcaluuna ma waxaad ka yeelaysaan risqakum risqigiina annakum adinku tukadibuuna kuwa markaa beeniya. risqigiiniina ma beeniseen. risqiga haddii qur'aanka laftigiisa laga dhigo afa bi hada alxadiidi xadiidkan ee kan ah qur'aankan sharafta leh ee ilaahay ku dhaaranaya inuu kariim yahay, kitaab maknuuna uu ku qoran yahay ee la ilaaliyey, uusan taabanaynin shaydaan dhammaantii ilaa qof daahir ah maahane. tanziil ahoo laga soo dejiyey caalamka rabbiga caalamkan oo dhan maamula xaggiisa. ma xadiidkaasaad antum mudhinuuna aad beeninaysaan ood inkiraysaan.
watajcaluuna ma ka yeelaysaan risqakum risqigiina annakum adinku tukadibuuna inaad beenisaan. risqigiinii qur'aankaa risqigiinii baa ku jira, wanaaggiinii baa ku jira. watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun. waxaa suuragal ah nebiga sala allahu calayhi wasalam baa xudaybiye ku dujiyey maalin cala ithri samaa samaraadkeeda oo habeen da'day. matalan xaloo kalea roob yimid, markuu xalay kale roob yimid, matalan caawoo kale yaa roob yimid. salaadii subax ayuu nebigu dujiyey saxaabadii. mar allaala markuu salaadii ka baxay ayuu yidhi ma taqaaniin oo ma ogtihiin wuxuu rabbigiin yidhi. markaasay dhan maya ilaahay rasuulkiisaa ku cilmi badan. rabbi wuxuu yidhi addoommadaydu way waabariisteen mid ani i rumeeyey xidigana ku kufriyey, iyo mid ani igu kufriyey oo kowkabka iyo xidigga markaa rumeeyey. qof kasta oo yidhi oo mar allaala markuu roobkii soo da'ay yidhi mumtirunaa bifadli illaahi, waxaana la ku roobeeyey fadli ilaah iyo naxariis ilaahay, fadaalika mu'minun bi, kaa anuu i rumeeyey xidiggiina wuu ku kufriyey. amaa qofkii yidhi waxaana la ku roobeeyey xidig hebel, xilligii baa la gaaray, waa xilligii ee bandarsamaha iyo xidigii baldaaqa la ohan jiray iyo xidigii noocaas intay isku yimaadeen ayaa wakhtigii la gaaray. wakhtigii roobka imaanaya wuxuu roobku ku yimid, xidig hebel baa soo baxay, markaasuu xidig hebel korkiisii istaagay, saasuu roobkii ku yimid. ninkii yidhina anuu igu kufriyey xidigiina wuu rumeeyey ayuu rasuulku markaa yidhi. markaasuu nebigu akhriyay watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun. waxaad ka yeesheen risqigiinii roobkii alla idin siiyey, risqigii alla idin siiyey inaad beenisaan ood ilaahay meeshaad ugu mahad celin lahaydeen aad beenisaan ood dhahdaan xidig hebel baana laku roobeeyey. qofkii saas yidhi anuu igu kufriye buu dhahay ilaahay, xidigana markaa wuu rumeeyey. falowlaa idaa balaqat, haddii ay soo gaarta naftii alxulquumu hunguriga, meeshaa hunguriga markay soo gaarto, wa antum adinkuna xiina idin wakhtigaa tanduruuna aad eegaysaan ood fiirinaysaan, wanaxnu annaguna aqrabu aan nahay kuwii idinkaga dhow ilayhi kaa dhimanaya xaggiisa minkum idinka idinkaga dhow, walaakin laa tubsiruuna laakiin aadanana arkaynin. wanaxnu aqrabu ilayhi marka la odhanayo waa malaa'igtaa loola jeedaa. malaa'igtii iyo waxay qabanayeen bacdamaa ilaahay uu soo dirsaday ayuu odhanayaa wanaxnu aqrabu ilayhi. waxa uu ka hadlayaa malaa'igtii xaggooda, anagaa idinkaga dhow xaggiisa, laakiin nooma jeedaan. ee falowlaa in kuntum, haddii aad tihiin hayra madiiniina kuwa aan la abaalmarinaynin, macnaha low aad tihiin kuwa aan jirin, haddii aad tihiin kuwa aan la abaalmarinaynin oo qiyaamo aysan jirin, tarjicuunahaa la ceshta ninkaa, tarjicuunahaa celiya oo naftii ku celiya midka muxtadirkee dhimanaya naftu ka sii socoto. in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya, haddaad run sheegaysaan kaa dhimanaya xayaatada ku celiya, ceshta oo idinka agtiina ha joogo. maamulka oo dhan ilahay baa wata subxaana wa tacaala. ayaduhu waxay tilmaamayaan maray gaaladu inkireen maamulka ilaah subxaana wa tacaala, annagaa iska soconay dheen cidna maamusho iyo cid wax nagu shaqo leh, intaasoo dhan markaa ma jirto. markaasaa loo tilmaamayaa markii horena in la maamuli jiray, haddana in la maamulayo waa xilliga naftu ay sii baxayso, qiyaamahana ilaahay ricaayadiisii maamulkiisa ay ku jiraan. sidaa darteed buu ilaah yidhi falowlaa idaa balaqat alxulquum, naftu haddii ay hungurigu soo gaarto, xulquumta waa meesha, wa antum adinkana xiina idin wakhtiga waa qaraabo iyo dadkii ehel ahaa oo meydkii dhimanayay gaarar fadhiya, tanduruuna aad eegaysaanood u jeedaanood fiirinaysaan. wanaxnu annaguna idinkoo meeshii fadhiyo u babbinayo canasiinaya, aqrabu aan nahay kuwii idinkaga dhow ilahi xaggiisa minkum idinka, walaakin laa tubsiruun laakiin aadan noo jeedin. falowlaa haddii in kuntum aad tihiin idinka hayra madiiniina kuwa aan la abaalmarinaynin, intaad dhimataan oo qiyaama laydin geeyo oo qiyaamo laydin abaalmarinayn haddaad tihiin, oysan jirinba qiyaamood inkirsan tihiin, tarjicuunaha celiyaba midkaa, dib u celiya in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan. haddaad celisaanna qiyaame ma jirto, waxaad doontaan sameeya. haddaad nafta ku celin weysaanoo idinkoo saas u fadhiya dhexdiina laga qaatana qiyaamaa jirtay diyaargarooba. qofkii dhintay saddex buu u qaybsamayaa marka. fa amaa in kaana haddii uu yahay midka muxtadarkee lagu soo xaadiray
ee sii socda min almuqarabiin muqarabiinta hadduu ka mid yahay kuwii la dhoweeyo ilaahay xaggiisa loo dhoweeyey waa saabiqiintee farawxun naxariis buu leeyahay wa rayxaanun rayxaanna waa u sugnaatay waa risqi wanaagsan wa jannatu naciimin naciimada jannadeedana waa u sugnaatay janno naciimo ah wax laysku nimceeyo oo lagu raaxraaxaysta jannadeeda ayuu markaa leeyahay wa amaa in kaana haddiise uu yahay min asxaabi alyamiini midigta asxaabteeda hadduu ka mid yahay fa salaamun nabadgelyo ayaa laka adig kuu sugnaatay midkan asxaabulyamiinta ka mid noqdayo salaam baa kuu sugnaatay xaggii kaaga sugnaatay fa salaamun nabadgelyaa laka adig kuu sugnaatay min asxaabi alyamiini midigta asxaabteeda xaal aad ka mid tahay iyo nabadgelyo kuu sugnaatay ama fa salaamun salaam baa kuu sugnaatay waa lagu salaama laka adiga min asxaabiilyamiin xaggooda lagaa salaamayaa waxaa ku soo salaamaya min asxaabiilyamiin asxaabulyamiin xaggooda wa amaa in kaana haddiise uu ka mid yahay min almukadibiina kuwa mukadibiintaee beenisan addaalliina ee dhumayna fa nusul buu leeyahay soo dhowayn martiqaad sooriyo oo min xamiimin biyo kulul ah kowba biyo kulul baa lagu bilaabaa wa tasliyatu jaxiim iyo jaxiimo gelitaankeeda inna haadaa midkan lahuwa xaqu lyaqiini waa xaq yaqiin ah ama yaqiin xaq ah waayee fasabbix nasih rasuulka ilaahayo tasbiixso bismi rabbika rabbigaa magaciisa alcadiim ee markaa weyn huf ilaahay magaciisa cadiimka ah ama rabbiga cadiimkaa magaciisa huf oo nadiifi oo u tasbiixso oo nasih oo xumaan iyo waxaan u qalmin oo dhan ka daa ilaahay falowlaa idaa balagad haddii ay soo gaarto naftii alxulquuma hungurigu hadday soo gaarto wa antum adinkana xiina idin wakhtigaa ninka muxtadirkii naftiisa hungurigu ay soo gaartay qaylinayso tanduruuna aad eegaysaanood fiirinaysaan wanaxnu annaguna aqrabu aan nahay kuwii idinkaga dhow ilayhi kaa muxtadirka xaggiisa minkum idinka aan idinkaga dhownahay idinkii ag fadhiyey oo gaar fadhiyey oo dharkii ka bedelayay oo u babinayay oo biyaha ku taslinayay aan annaga idinkaga dhownahay waa malaa'igtiiye walaakin laa tubsiruuna laakiin aadanna arkaynin oo aadan noo jeedin falowlaa haddii in kuntum aad tihiin hayra madiiniina kuwa aan la abaalmarinayn kuwa la abaalmarinaya hayrkood haddii aad tihiin waa kuwaan la abaalmarinaynine tarjicuunaha celiyaba ninkaa kaa ceshta in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa markaa run sheegaya fa amaa in kaana haddii uu yahay muxtadirkii dhintay min almuqarabiin muqarabiinta iyo dadka ilaahay u dhow xaggooda hadduu ka mid yahay farawxun naxariis buu leeyahay farawxun waxaa la dhihi karaa raaxo farxad raynrayn roox naxariis wa rayxaanun udugna waa u sugnaaday rayxaanta waa haddii kale waa risqi iyo wa jannatu naciimin naciimo jannadeeda wa amaa in kaana haddiise uu yahay kii dhintay min asxaabi alyamiini midigta asxaabteeda haddii uu ka mid yahay min asxaabi alyamiin fasalaamun nabadgelyaa laka adig kuu sugnaatay min asxaabi alyamiin midigta asxaabteeda xaal aad ka mid tahay nabadgelyaad leedahay badbaado waad badbaaday ama fasalaamun salaam baa laka adig kuu sugnaatay midkaa midigta asxaabtiisa noqdayow salaantaasoo kaaga timid min asxaabi alyamiini midigta asxaabteeda xaggooda wa amaa in kaana haddiise min almukadibiina kuwa beeniyey oo beenisan oo diin aan oggolayn oo xaq iyo amar alleh inay raacaan aan oggolayn haddii uu yahay wa amaa in kaana haddiise uu ka mid yahay min almukadibiina kuwa mukadibiinta ah ee beenisan ee diiday tawxiidkaan oggolayn addaalliina ee dhunsan bidcada iyo xumaanta iyo waxa ilaahay diiday ku dhex jira habeenii maalin kaana fa nusul buu leeyahay soo dhowayn waa la soo dhowaynayaa maxaa lagu nusulayaa min xamiimin biyo kulul sharaab qabow iyo faanta iyo juus iyo casiiraad baa laysku soo dhowayn jiray naarta inay meel xun tahay waxaad ka fahmi kartaa horta nusulkii waxyaabaha lagu qaabilayo lagu soo dhowaynayo biyo kulul bay noqdeen buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala fa nusul buu leeyahay dejin
soo dhoweyn martiqaad oo min xamiimin biyo kulul ah iyo wa tasliyatu jaxiimin jaxiima gelitaankeeda markii la soo dhoweeyo biyaha kulul la siiyo jaxiima haddana la aadinayaa marba marka ka dambaysii tallaabada ka dambaysa waa tallaabo cadaab ah oo dhib iyay ku mutaysanayaan wax aad iyo aad u xun waad u jeedaa way beeniyeen wayna dhumeen isla markii waa la soo dhowaynayaa waxaa lagu nusulinayaa min xamiimin biyo kulul iyo wa tasliyatu jaxiimin jaxiima gelitaankeedana way u sugnaatay inna haadaa arrintan lahwa xaqun waa xaq alyaqiini oo dhab ahoo sugan waa shay xaqiiqo ah oo xaq ah oo run ah oo dhab ah haddana yaqiin inay dhacayso ama inay dadku arkayaan arrintu inay saa noqonayso yaqiinteeda leh fasabbix tasbiixsa rasuulka ilaahayo fasabbix nazih ama huf oo dahir bismi rabbiga magaciisa rabbigii alcadiimi ee weynaa ilaaha cadiimkaee sharafta iyo cadamada iyo mudnaanta iyo weynaanta ay u sugnaatay axad ka weyna uusan markaa jirin magaciisa ka ilaali waxaan u qalmin magaciisa sharafta uu leeyahay sii magaciisa waxyaabaha ilaahay uu ka diiday ka diid waxa uu ilaahay isku sugay magaciisa uu ku sugayna markaa ku sug saad khayr iyo wanaag u gaarto saad sharaf iyo horumar u gaarta wa amaa in kaana haddii min almukadibiina uu ka mid yahay kuwii beenisan haddii kale addaaliina ee baadiyaysanee dhunsan fa nusul iyo soo dhoweyn baa u sugnaatay oo min xamiimin biyo kulul ah nusulkiisii martiqaadkiisa waa xamiimo waa biyo kulul wa tasliyatu jaxiim iyo jaxiima gelitaankeeda ina haadaa lahuwa xaqu lyaqiini tani waa xaq yaqiin ahoo sugan ama yaqiin xaq ah waaye fasabbix uf oo nazah oo u tasbiixsa bismi rabbiga magaciisa rabbigii alcadiimi ee markaa weynaa suurat alxadiid baanu geli doonaa balse meesha hanoo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam